agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka Khadir Nuur Cabdi Buubal oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Jire ayaa si rasmi ah u soo xiray tababar 2 maalmood socday oo ka dhacay xarunta barashada wadaniyadda ee wasaaraddaasi. Tababarkan oo ku saabsanaa kobcinta doorka muwaadiniinta ee dhismaha nabadda iyo xoojinta wadaniyadda. Ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay agaasimaha xarunta barashada wadaniyadda Mudane Cabdirasaaq Yuusuf Jaamac Daraakil isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedada tababarkani iyo casharadii muhiimka ah. isagoo sheegay in tababarku yahay mid ka mid ah dadaalada lagu horumarinayo wacyiga dhalinyarada. barnaamijkanu wuxuu ku saabsanaa doorka guud ahaan muwaadiniintu ay ku leeyihiin dhismaha nabadda iyo wadaniyadda. runtii si qurux badan oo qiimo badan baan marxaati ahay in ay dhalinyaradaasi xagga waqtiga iyo xagga dhageysiga iyo xagga falcelintaba ay si fiican uga qayb qaateen. Cabdikariin Maxamed Mustafa oo ah khabiirka tababarkan bixinayay ee ka warbixiyay casharada la gudbiyay iyo sida dhalinyaradu ay u muujiyeen fahamka iyo firfircooni iyo ka go'aanshaha ku saabsan doorka nabad dhiska iyo kobaca dawladnimo. waxaanu labada maalmood baranay waxa uu qofka muwaadinka uu yahay suuliyadaha saaran waxa ay wadaniyadu tahay iyo waxyaabaha laga rabo qofka muwaadinka ah. waxa kale oo baranay nabadda iyo nabad dhiska. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Jire ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay fahamka wadaniyadda, nabad dhiska iyo kobaca dawladnimo. marna dhalinyarada caasimadda tiin marna dhalinyarada wadanka tiin meesha la iska eego ee ummadoo dhan role modelka waayna waa caasimadda. wadan kasta sida ay caasimadiisu tahay ee dadkeedu yihiin buu isaguna noqdaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta dhalinyarada sharafta badan nabadgelyada iyo nimcada isugu timi waxa weeye dad badan oo inala mid ah ama ummad badan oo islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed laga yaabo inaysan haysan inaan maanta isugu timaado idinko baranaya doorka dhalinyarada ee nabadda iyo wadaniyadda. agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka ayaa ka hadlay kobcinta fahamka muwaadiniinta isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in bulshadu si buuxda ay u fahanto waajibaadka muwaadinimo. gabagabadii agaasimaha guud ayaa shahaadooyin guddoonsiye dhalinyarada ka qayb qaadanaysay tababarkani oo loo soo gabagabeeyey. سعد أحمد عيديد تلفزيون كقرنك مقالة هرقيسة. runtii waa farxad labaad bay tahay inaan goobjoog ka ahaado gunaanadka iyo gabagabada tababarkan labada cisheedii soo socday oo runtii aan u arko inuu yahay tababar muhiimad weyn leh sii socoshadiisa iyo ballaarintiisuna tahay shaqo inoo wada taalla intii qaadatay iyo intii qabatayba oo muhiimad weyn dhalinyarta iyo runtii dalkaba u leh wasaaradda ahaan aanu diyaar u nahay. runtii dhalinyartu waa mudanta sidaa uu sheegay saaxiibkay dalka ugu mudan waa kii abwaankeenii weynaa lahaa ee xaajaadan afqallo alla naxariis janaa ka waraabiye geed hadduu qalala xaabada lagu idlaystaaye